السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داود اللي يستيال مقعيبو علي عامر حسن كسو دوادا وحيابي تحناها هوري إيقا براتين كساب سنة دروسة علمي وعافماتك قاسة علمي وشيبارك inkastoo aan goob shaqo joogo haddana waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo wax ka mid ah talooyin iyo tusaalooyin ku saabsan filliga laboratory-ga. Tusaale ahaan waxyaabaha aan xoogga saari jiray sida dadweynaha waxaa ka mid ah sida loo testgareeyo xanuunada cudurrada ku dhaca dadka, sida waxyaabaha la xiriira maxaa la dhahaa serology-ga, sida hematology-ga iyo sectionada biochemistry-ga qaar ka mid aan ka hadli jiray. Laakiin maanta way ka duwan tahay. Waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo wax ku saabsan cilmiga la yiraahdo phlebotomy oo ku saabsan cilmiga qaabka buriinka loo sameeyo nooc doon ha ahaadee IM ha ahaado, IV ha ahaado, intradermal ha ahaado. Marka phlebotomy waxay iskugu imaanaysaa dhammaantood qofka in faleembo la suro, in cirbad la duro iyo in cirbadda noocyaha ay leedahay qaababka loo kala duro qofka uu barto. Tusaale ahaan intradermal laba nooc loo duraa, in maxaa la dhahaa subcutaneous qof lagu duro iyo dermalka caadiga qofka lagu duro, iyo in qofka loo duro IV iyo IM oo intramuscular ah iyo intravenous kala ah. Marka phlebotomy waxyaabaha aan uga hadlayo waxay tahay dabcan waxay soo hoosgalaysaa qofka laboratoristaha in uu yaqaano qaabka qof loo duri karo maadaama uu section caafimaad ka shaqeynayo department caafimaad ba ama filliga laboratory-ga hadaa ka tirsan tahay. Meesha aad joogto waa goob caafimaad, waa inaad qofka nurse-ka markuu maqan yahay waa inaad duri kartaa qofka, aad dhiig qaadi kartaa, nooc walba u baahan yahay duriin ah waa inaad sii kartaa, hadduu yahay IV, hadduu yahay IM, hadduu yahay intradermal. dabcan ma rabo inaan video dheer soo duubo, laakiin waxaan rabaa inaan sii ogeysiiyo inaan duruusta bilaabi doono mar kale haddii Ilaahay yiraahdo, oo aan jeclahay inaad ila socotaan dhammaantiin. Waxaan aad u rajeynayaa sida aan maxaa la dhahaa wada jecelnahay inaan wax wada faa'iideysano, aan iskaga maxaa la dhahaa aqoon u kala korsano. Laakiin aniga waqtiyada aan jaaniska leeyahay baa casharo soo geliya meeshaan, ama Facebook ha ahaato ama YouTube ha ahaato. Inkastoo badanaa duruusta aan soo geliyo barteeda Facebook, haddana waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa dhammaan dhalinyarada ka faa'iideysato casharada iska kooban ee aan waqtiyada aan jaaniska leeyahay soo duubo ee ku saabsan cilmiga laboratory-ga. Intaas ayay iga ahayd talooyin iyo tusaalooyin ayay ahaayeen oo aan soo gudbinayay, iyo casharo la xiriiro sida loo testgareeyo waxyaabaha fudfudud ee basic laboratory-ga sida sampleska urinalysis-ka la xiriiro, sampleska hematology-ga la xiriiro, iyo sampleska la xiriiro sida serology loo testgareeyo hadday yihiin dhammaan serology sida hepatitis B, hepatitis C, maxaa la dhahaa toxoplasma, brucella, waxay la xiriiro maxaa la dhahaa H pylori, waxay la xiriiro typhoid, dhammaan wixii serology ah sida aan xoogga u saari lahaa insha Allah tacaala soo diyaarin doonaa, idin soo gudbin doonaa insha Allah. Idinna inaad ka faa'iideysataan waan rajeynayaa. Dhammaan asxaabta, saaxiibada iyo ardayda ku xiran barteeda YouTube-ka iyo casharada aan soo geliyo Facebook kuwa ku xiran, waxaan aad iyo aad ugu rajeynayaa inaad ila socon doontaan insha Allah. dhammaantiin waa mahadsantiin. Intaas ayaan soo duuba maanta, waana talooyin ah ku saabsan inaad ila socotaan maadaama aan dib u bilaabi doono duruusta. waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.